waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqosho dambe iyo kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta qiimaha leh, aad baa idiin salaamay. Maanta waxaynu sii wadan doonaa cashirkeenii inoo soo socday ee taxanaha ahaa toddobaadkii dhaweetay kaga soo doodaynay fascicular transport, annagii soo kala qaadi jirnay saddexdii soo kala qaybinay. Kulley ciddii xasuusta exocytosis, endocytosis iyo tricytosis soma. Marka annagii theories soo qaadanay endocytosis ahayd ee saddex soo kala qaybinay, phagocytosis, pinocytosis iyo receptor mediated endocytosis. Annagii phagocytosis soo qaadanay ee phagocytosis saddexdan soo kala qaybinay, recognition and attachment, engulfing iyo killing oo saddexda phagocytosis soo kala qaybinay. Mid kastaba annagii mataqaanaa dul istaagi jirnay recognition and attachment soo qaadanay, soo qeexnay, si fiican u soo qeexnay, isla soo soconay. Insha Allah maanta wuxuu idinku bilaabi doonaa cashirkeenu. Maanta wuxuu inoogu bilaabi doonaa engulfing, maadaama soo qaadanay recognition and attachment oo naga soo qaadanay. Wuxuu cashirkeenu maanta ka bilaabi doonaa insha Allah engulfing buu ka bilaabi doonaa. Haddaba engulfing muxuu yahay? Waxaynu odhanay mataqaanaa phagocytosis saddex buu kala qaybsami doonaa. Recognition and attachment, in wixii la aqoonsado ama fooriyaankii dibadda ka soo galay in la aqoonsado soma. Markii wixii la aqoonsado wuxuu la soo ogaaday sawir laga qaato, dhankasta laga istaago, immuunkeeni jiro ka istaago, si mataqaanaa loogu soo dalbi lahaa ciidankii wax leyn lahaa, mataqaanaa loo dili lahaa. Ayaa haddaba waxa la sameynayaa habka ugu fududeynaya ugu horreynta in mataqaanaa dilidii la isku diyaarinayo ama la dilayo wixii in mataqaanaa engulfing lagu soo sameeyo. Engulfing waa isku xeerin, macnaha wixii in gudaha la soo gashto, soo sawirka hoosba ka muuqata in wixii gudaha la soo gashto. Hadda waxa la yidhi white blood cells ku waa la yidhi bison wada furnaysan ashada wada soo sheegnay. Xayndaabkaas ama oodaas ay mataqaanaa fidinayaan iyagoo daboolaya lagu yidhi dhamaan organismka microorganismka oo daboolan wada arkaysiin gudaha la soo gashanaya. Markii gudaha la soo gashto ee dhan kastaba laga soo hararsamo, markaas mataqaanaa wixii foreign-ka ama microorganismka wixii jirka soo galo dhan si fudud waxa la isku dayaa jirkeena ama si fudud wuxuu ku mataqaanaa burburin doonaa inuu ku dilo si fudud. taas ayaa ugu saacidaysa habkan engulfing-ka la yiraahdo ku jira phagocytosis. Hadda waxa lagu yidhi microorganismka kadib wuxuu loo sii transport garoobi doonaa habkan mataqaanaa waxaan markii engulfing lagu sameeyo engulfing-ka laguma dilayo. engulfing-ka hab kale ka dambeeya oo mataqaanaa isagoo kalinkii noqonaya, macnaha dilitaanka noqonaya. engulfing-ka marka wixii la isku xeero dibadda waa la transport garin doonaa baa lagu yidhi, hab kale ayaa lagu transport garin doonaa. Muhiimaddu waxay tahay niyaddu ku haysato in engulfing jirto oo la isku soo xeerayo wixii mataqaanaa ooda laga dhigay waxa ooda imka casab microorganismki waxa isku soo xeerno immuunkeeni jirka cells. Hadina ka sii socono haddaynu soo aragnay mataqaanaa engulfing, imikana killing baynu arki doonaa. Killing maxay ka dhigan tahay? Waxa lagu yidhi final process of phagocytosis, waa habka ugu dambeeya mataqaanaa phagocytosis-ka loo xilinayo mataqaanaa killing-ka, maadaama la isku soo xeeray. Waa la isku soo xeeray kulli wada arkaysiin microorganismkii markii la isku soo xeeray la soo gashtay gudaha ama mataqaanaa nucleus-tii soo gashtay mataqaanaa buudiisii uu soo gashtay meeshii mataqaanaa ugu badnayd uu soo gashtay mataqaanaa wixii cadowga ahaa uu jirkeeni soo gashtay. Markaas si fudud isku dayay jirkeeni in killing ku sameeyo, macnaha uu dilo ayuu isku dayay jirkeeni soma. habkan waa habka ugu dambeeya lagu yidhi phagocytosis waxa loo kala qaybin doonaa labadan hab loo kala qaybin doonaa. Labadan mechanism buu yar dhacaa mataqaanaa killing. labada mechanism waxay dhigan tahay mid oxygen ku xidhan iyo mid oxygen ku xidhnayn. Waa oxygen dependent iyo oxygen dependent, waa labadaas buu kala bixi doonaa killing-ka. habkan la dilayo inuu oxygen ku xidhnaado, hab oxygen lagu dilayo inuu ahaado, ama habkan inuu ahaado mataqaanaa bil oxygen ahaano mataqaanaa uu immuunka jirkeena uu ka takhalusayo sidaas. haddaba habkan mataqaanaa oxygen-tu muxuu yahay? waa iyadoo la isticmaalayn mataqaanaa sahro soo sheegay oxygen mataqaanaa iyadoo la isticmaalay weeyaan la active gareynayo sida mataqaanaa superoxide iyo peroxide. waxa mataqaanaa lagu isticmaalo oxygen lagu isticmaalo lagu dilo microorganismka. habkaas mataqaanaa waa habka koowaad oo oxygen-tu ay ku xidhan tahay. habkan labaadna waa oxygen dependent, wax oxygen kuma xidhna mataqaanaa dilitaankan killing-ka la sameeyo phagocytosis kuma xidhna wax mataqaanaa kuma xidhna wax oxygen. waxaa loo isticmaalay lysosome proteolytic service. lysosome-ka waan arki doonaa chapter kan soo socda insha Allah weeye. habka lysosome ahaameed baa loo isticmaalayo wixii degradation lagu sameynayo. habkan lysosome waa hab mataqaanaa jirkeena oo wax lagu save gareeyo, wax ku dareemayo, pH ku dareemayo, wixii inta ka baxsan uu ku leenayo. wayna arki doonaa kana waxa lagu dilayaa oxygen dependent weeye, wax oxygen kuma xidhna lagu yidhi. muhiimaddu waxay tahay in niyaddu ku haysato killing-ka laba qaybood noqonayo, mid oxygen ku xidhnaa iyo mid oxygen ku xidhnay. Iska soo dhaafno.
haddaba phagocytosis xaggaas naga soo dhawaaday maadaama la yidhi mataqaanaa habkii killinka ama habkii wax lagu dilay wuxuu noqonayaa final of the phagocytosis buu noqonaya. waa habka processka uu soo socday phagocytosiska ahaa, wax isku xeeridda iyo wax dilidda ahaa, waa habkii ugu dambeysay u dhacaya lagu yidhi killinkana markuu mataqaanaa saddexdiisii qaybood soo dhammaadeen. haddaba maxay tahay importantiga laga leeyahay phagocytosis in la gaadho ama phagocytosis in la fuliyo, maxay ka dhigan tahay faa'iidadeedu ama mataqaanaa inoo sameynaysaa jirkeena marka loo eego. horta kow waxay tahay mataqaanaa in wixii laga saaray removalka sweepsa ka maqan, computer error baa dhacay. user horta wuxuu yahay isticmaalkiisa ama mataqaanaa waxa loo isticmaalaya waxa weeyaan remove in laska saaray microorganism waxa wixii foreign dibadda kasoo galay ama wixii mataqaanaa jirkeena ku ah khatar ku ah safar ku ah ama wixii dhiba ku ah jirkeena in laga saaro wixii oo mataqaanaa dibadda loo saaro oo fiyajada koowaad oo jirkeena uu leeyahay. hadduu wax kasta wasakh iska soo galay waa guri ma kasoo qaado karo, tusaale ahaan dee guri mataqaanaa wasaqi cid kasta soo galayso, xayawaanku aydu wax kasta soo galayso dee guriga wuu wasaqoobaya soo ma cid nadiifinaysa ma jirto dee. marka habkan phagocytosis la yidhaahdo habka jirkeena faa'iido badan buu hayaa, halkaaba ka dhanasayno waxay naga saaraya waxa lixii microorganism ama wixii mataqaanaa khalkhal jirkeena galay. sidoo kale waxa uu saaraa isagoo wax lagu programinayo wax naga saaraa mataqaanaa dead cellska wixii salalka dhintay jirkeena dhex yaalla waxba lagu filin. haddii maanta qashinka la iska qaadi doono xaafaduna iska diisto qashinka la soo ururiyo xaafadda lagu geysto dee dhibaata noqonaysa, halka xanuun baa ka dhalanaya soo ma. markaas dead cellska ku dhex dhintay iska yaalaan cell debris wixii dhintay mataqaanaa salalka la laayay ama wixii dagaalo ku dhacay. tusaale ahaan maanta mataqaanaa markaad imika mataqaanaa nawr baa kaasoo gaadhay gacanta, nawrka gacanta kaasoo gaadhay mataqaanaa waxaan uu ku dhiigay wixii markuu ku dhiigay dhowr toddobaad kadib waxaad ku aragtaa biyo iyo wax yaraado iyo mucus yar soo jiidanaya. waxaas wax kale ma habkii phagocytosis baa fuliyey. waxaan loogu sameynayaa habka jirkaaga la iska soo saaro dead cellska sababtoo dhaawac bay ku keeni karaa, waa wixii immuunkii baaba'ay lymphocyteska mataqaanaa dhaawacmay iyo mataqaanaa wixii la isku laayay iyo bakteeriyadii dhaawacmatay waxaasoo dhan baa dibadda loo soo daadinaya si jirkeenu faa'iido u gaadho mataqaanaa wax caafimaad qaba jirkeena ku dhex jiran iyo wixii lamid ah. qodobka saddexaad muxuu ka hadlayaa waxaan sidoo kale mataqaanaa isagoo wax lagu programinayo wixii naga saaraaba lagu yiri oo liver cellska oo loo cellska naga saaraaba lagu yiri mataqaanaa wixii naga saaraaba lagu yiri habkan phagocytosis wixii naga saara oo liver cells waxya oo halka ka maqan wixii naga saaraaba lagu yiri mataqaanaa salka gaboobo kala sida waxa kamid ah RBC oo kala kamid ah waxaas kale naga saaraaba lagu yiri mataqaanaa way noogu faa'iido leeyahay isoo sheeg phagocytosis daami naga saaray wixii gaboobo jir ku dhex jiray iyo wixii mataqaanaa wasakh jirka u keenay iyo wixii kale soo tusaalahaan soo tilmaamay red blood cellska mataqaanaa in laga saaro kala si habka red blood cells loo saarayo. red blood cellska mataqaanaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu jirkeena ugu qadimay inuu mataqaanaa noolaado 120 iyo mataqaanaa 6 ilaa 120 intaas lagu qiyaasaa. wixii taa ka baxsan in red blood cellska uu daalay ka dhiganta wala daadinaya kana sa ka qayb qaata habka phagocytosis baa lagu yiri. halka haddii naga soo dhamaaday phagocytosis faa'iidadiisii wuxuu ahaa intii soo galbaxay waxaynu geli doonaa pinocytosis baynu geli doonaa. pinocytosis muxuu ka dhigayaa saddexdii hab ee endocytosiska phagocytosis iyo pinocytosis maxay ka dhigan tahay. pinocytosis waxa la yiraahdaa lateral meaning caadi ahaan waxa loo qoraa lagu yiri cell drinking cellkii wax cabiya habka sulka biyaha u cabaya. habka sulka biyaha u cabiya waxay noqonaysaa imika halkaas u darkeysaan xariiqyadaas iyo mataqaanaa iyo wax imika weego kale waxaan ku tilmaamaa xidigta weego kale iyo waxyaabaha kale waa substance-kii dibadda yaalay extracellular fluid ka soo qaadaan wixii dibadda yaalay waxaan imika gudaha soo galay oo odaayro kale waxaad u qaataa wixii dibadda soo galay waa intracellular fluid. haddaba waxa lagu yiraahdaa habkan pinocytosisku imika fasciculus bundleska xagga yeelay oo ku muujisan aarowga ku muujisan dibadii tahay kulka hore wadarkiisa kulka hore say invagination ku sameeyay macnaha isku soo duubayso markay isku soo duubto habkaas halka fasciculus ama mataqaanaa kiishashka biyaha soo galay biyaha ayaa salka loo soo qaadaya halka marka biyaha la salka soo dhaxay breast lagu sameeyaa mataqaanaa salkii waxa halka salkii ka dhamaya biyaha ma uu ka cabiya salkii biyaha habkaas ayaa loo yaqaanaa mataqaanaa pinocytosis. biyaha xagga laga soo qaysay waa carrier waa xamaali waxba soo qaaday biyo soo qaaday ama mararka qaar waxa soo raacay kala substance waxa yar marka xidigta iyo waxyaabo kale ee guriga bubliga waxaad ka soo qaataa goyn substance asha iyo mataqaanaa faa'iido inuu salka soo galo wixii looga baahnaa si laga soo qaado. markaas habkan ayaa la odhanayaa pinocytosis uu soo galay jirka oo processka uu soo galayaan baa lagu yiri water waxa ugu muhiimsan oo ah water ma substance bas soo raaci karo most of the salka mataqaanaa dadkaas oo most waa
of the salka wax yar oo faa'iido ah soo raaci kara. intaana wax mataqaanaa khalkhalin jirka maahan wax faa'iido jirka u hayo. macnaha habka inaad ogaato ma lagaga wadaa in pinocytosis iyo habka usoo galeen cell dareenkan uu yahay salka habka uu biyaha u cabiyo. waxaad ogaataa baa lagu yiri tiplin inward bay sameeyaan markay waxaan soo galayaan tiplin bay usoo galayaan si yar oo hoos ah marka wargaysan kalba say u socdaan taa ugu hor inta aragtaan iyadoo afkeedan badan bay kala haysaa tan ku xigta labaad aragtaan in yar bay kala haysaa tan markay buuxsanto in sadkii loogu talagalay santa boonkii loogu talagalay istaagto kadib waxa la soo gelinayaa fasciculus gudaha la soo gelinayaa si looga dhaansado biyahaas pinocytosis waxa kala kaas oo aragtaa ma filaya pinocytosis soo rule ka muujiso manahayna halkaas mataqaanaa extracellular fluid baa yaala waxa yara kuulaha kala waayay waxaas oo kala waayay extracellular fluid kaas mataqaanaa faajirinta kaas double inward baa sameeyaa guduhu soo galaya kusoo galan isku daboolmay wuxuu wuxuu noqonayaa fasciculus ka waxa soo raaci kara substance yar mataqaanaa silka waa faa'iido waxa lagu dhaafay qoraalka wuxuu leeyahay the bit pinch of the inside buu soo galaya baa lagu mataqaanaa phagocytosis ama mataqaanaa pinocytosis kan jeeda pinocytosis kan mataqaanaa wuxuu noqonayaa habka doubling-ka uu sameeyo bal pinches-ka uu sameeyo salka soo gudaha uu soo galaya habka pinch-ka uu noqonayo cell-membrane-ka guduhu loo soo galaya isagoo sida mataqaanaa fasciculus ka kooban yahay mataqaanaa fluid ka kooban yahay salka faa'iido waxaya fasciculus-kaas ay ku jiraan kiishashkaas ay ku jiraan mataqaanaa pinocytosis ama wixii biyihii loogu talagalay salka fluid-kii loogu talagalay ku jiraan iyo substance-ka soo raacay habkaana maskaxda ku haysta ma loo baahay pinocytosis. okay habka saddexaad muxuu ahaa isaguna receptor mediated endocytosis habka saddexaad isaguna wuxuu haban filayaa mataqaanaa inoo soo socday buu haban filayaa habkan muxuu ka hadlayaa mataqaanaa receptor mediated endocytosis waxa lagu yiri waxa loo isticmaalaa transport substance such as insulin other hormones enzymes iyo lipoproteins receptor mediated endocytosis habkan isagu wuxuu noqonayaa habka wax weyn loo isticmaalo sida mataqaanaa insulin jirka soo kale ama hormones kale enzymes ama lipoproteins kale waxay sida jirka soo galayaan enzymes iyo hormoonada si jirka soo galayaan kale waxa soo kale noqonaysa waa process-ka lagu leeyahay specific receptor mediated baa lagu yiri waa process baa lagu yiri isagu mataqaanaa qof haysta lagu yiri oo mid khaas ah oo receptor loogu talagalay halka maxay noogu muujisaa receptor mediated baa jira jirkeena Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu talagalay meel kasta inuu mataqaanaa receptor baa leeyahay receptor-kaas oo loogu talagalay wax haduu maanta extracellular fluid ka soo galay intracellular fluid ka soo galay waxa loo baahan inuu receptor haysto xanuunada inagu dhaco kala mataqaanaa qofkeena waxa ku yaala bini'aadamka intaas oo receptor baa ku yaala receptor-ka ayuu soo eeganaya xanuunka markuu receptor-ka helana meeshii lagu talagalay meeshii mataqaanaa ugu talagalay meeshii eegsanaya si toos u tagay marka receptor-kani waa hawo mataqaanaa aad iyo aad mataqaanaa u fiican inka haddii insulin soo qaadano kale insulin baa jirkeena ku jirta saas kuma galayna pancreas soo deysado ma haddaba qofkan macaan kale wuxuu qaadanayaa insulin haddaba insulintan waxa loo baahan maadaama insulin qofku marka mataqaanaa ay mataqaanaa yaraatay insulintiisa yaa insulinta u qaata soo ma lagu mudo insulinta injection-ka lagu mudo ayaa mata haddaba marka insulinta lagu mudo waxay eeganaysaa habkan receptor-keedii bay eeganaysaa insulinteedii kale eeganaysaa say mataqaanaa facilitate noqotay ka habto mataqaanaa ama fudeediyo haato ama ay ka habto wixii contribute bay ka noqonaysaa macnaha marka insulinta kale ku biirto insulin artificial mataqaanaa dibadda lagu sameeyay insulinta salka markay receptor isku yeeshaan mataqaanaa sabgartaan saas ay shaqadeeda ku sii qabsanaysaa iyo hormoneska kala baa iyo enzymeska kamid waxa soo dhamaa kamid receptor baa ku jira lagu inside cell mataqaanaa boss ligand iyo receptor waxa la yiraahdaa ligand waa substance mataqaanaa lagu soo waxaynayay mataqaanaa receptor-ka eeganay ligand-iska ayaa eeganaya lagu receptor-ka say soo gala gudaha salka markaas ay salkii mataqaanaa faa'iido fara badan u qabanaya salkii mataqaanaa oo helaya wixii loogu talagalay ligand-iskan waa wax mataqaanaa substance-ka insulin taasoo meelan baa kamid ah markay soo gashay receptor bay qabsanaysaa receptor-kan waxa uu yaala inside salka ugu yaala kadib saasay gudaha soo galaysaa mataqaanaa shaqadeeda ku qabsanaysaa haddaba halkeer maxay noo yaala xadugataaba lagu yiri disadvantage biliya habka mataqaanaa receptor mediated endocytosis sababta sometimes waqtiga qaarkood waxa ku soo gala xanuunada aad iyo aad ka weyn ilaahay nagu marida laga baqo la yaqaan HIV/AIDS oo kale wadis mechanism kan ku soo gala receptor mediated endocytosis ku soo gala haddaba hadduu qofku leeyahay receptor kan mataqaanaa HIV/AIDS-ka inuu mataqaanaa si toos u soo gala ayaa laga baqay HIV/AIDS-kaas sababta waxa ay tahay receptor-kii uu ku soo galay HIV/AIDS haddaba waxa jira mataqaanaa dadaan receptor mataqaanaa HIV/AIDS-ka oo ku dhicin adduunka niyada ka ogaato mooyaan mataqaanaa iska ogaato cilmiyahan haddaba dadkaas waxa lagu qiyaasaa mataqaanaa dhugaasi ku nool yihiin adigu mataqaanaa dhirleyda dhiraha dhaadheer dhugaasi ku nool yihiin
Markaas dadkaasi mataqaanaa male wax receptor mediator endocytosis, taasina waxay ugu fududaanaysaa ama mataqaanaa receptorka HIV AIDSka inuu haysan, taasina waxay fududaynaysaa in mataqaanaa qofkii AIDS soo gelin, qof kasti xataa isagoo contagious oo laska garanay AIDSka la isqaadsiiyo kama qaadayo qofka xanuunka. Marka receptorkana wax aad iyo aad u faa'iido jirkeena waayo marka qaarkoodna disadvantage buu leeyahay saad aragtaanba. Socono that's indi aad baad mahadsantihiin sida fiican u daawateen. insha Allah waxaan idin rajeynayaa guul iyo toddobaadkeena dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.